وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وزير كحيانك وزارة قويسك إيه حقوق الإنسان وزير كحيانك وزارة إسبورتك إيه دليرة إيه عيارها أقاسمها إن هيئة إن خيرجة يردميلي إيه أقاسمها هيئة خيرجة منهل أقاسمها جودة إسبيتالك ضمان كسوق بقرياشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سلام كدب وحوين بيئتها هاي إن أن كسوق بقلو مناسبة والباء أو لغو حصيو إن haween Soomaaliyeed iyo caruur Soomaaliyeed wax loogu qabtay waayo mandate ugu weyn ee wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyadda ugu weyn oo saarana wuxuu yahay in badbaadinta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed inay helaan daryeel caafimaad ay xaq asaasiga ah u leeyihiin. waan ku bogaadinayaa isbitaalka Yardameeli in hadda ka horna aan ka soo qayb galay munaasabad 100 haween ah oo bilowgii uurka ilaa ay ka dhalaan daryeel free ah ay u fidinayeen xuskaasna inaan ka qayb galay. maantana hadda aan joogno munaasabad kale oo lagu soo xirayo inay u adeegeen muddo sanad ah ama muddoodii maaragtay uurka ay lahaayeen bilow ilaa ay ka dhalaan oo si nabad ugu dhalaan. munaasabada lagu soo xirayo inaan maanta joogana sidoo kale waa wax weyn ayaga iyo caruurtoodiba kaligood ma aha waliba 100 haweenka iyo 100koodii canug la daryeelay muddadaas wax weyn waayo waan ugu mahadcelinayaa waa bogaadinayaa aad ba u mahadsantihiin hal abuurkaasi aad la imaadeen oo cid kale oo la imaaday aysan jirin waa idinkaga mahadcelinayaa. laakiin intaas naguma filno haddii aan nahay wasaaradda caafimaadka mas'uuliyad weyn baa na saaran ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyad weyn baa naga saaran dalkana duruufaha uu ku jiro ma saamaxayso mas'uuliyaddaasi sidii la rabo inaan ugu soo baxno. waxaan rabnaa private-ka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan inay garab naga siiyaan mas'uuliyaddaas. kuma sii jiro isbitaalka Yardameeli oo ay dhistay hay'ad khayri ah oo walaalahan Turkiga ay leeyihiin ay dhistay oo ay maamusho hay'ad khayri ah oo Soomaaliyeed ay maamusho dhulkiisana dawladda Soomaaliyeed ay bixisay. intaas markuu isku darsaday waxaan rabnaa si ka duwan isbitaalada kale in uu noola shaqeeyo sida hadda uu noola shaqeeyo si ka sii fiican inuu noola shaqeeyo dadaalka hadda ay wadaana ay sii kordhiyaan. waxaan rabnaa in ma aragtay isbitaalada private-ka oo dhan hal abuurkan oo kale inay la yimaadaan waa u baahannahay. waxaan xasuustaa dalka Yemen oo aan wax ku soo bartay isbitaal weyn oo la dhihi jiray University of Science and Technology Hospital isbitaal private ayuu ahaa. wuxuu samayn jiray MCHyo xarumo hooyada dhallaanka lagu daryeela ayaa degmooyinka iyo xaafadaha fogfog ayuu ka hirgelin jiray. qarashka isbitaalka soo baxa intuu ku dhiso shaqaale lagu shaqaaleeyo ayaa dadka degmooyinka fogfog jooga lagu daryeeli jiray. kiiskii adkaadana loo soo refergaray jiray isbitaalka. waa mas'uuliyaddii bulshada oo qayb ka mid ay qaateen. dhinac kale waa sumcad iyo taageero ay ka helaan bulshada. dhinac kale waa suuq ay ku helayaan faa'iidooyin badan ay ka helay jireen. isbitaalada private-ka waxaa laga rabaa bulshadana inay tusaan mas'uuliyaddii qayb weyn inay guteen magac iyo maaragtay ajirna waa ka helayaan ganacsigoodana waa kusii bulaalayaan. haddii aanan qarash la qaadin isbitaalka isma bixin karayo. laakiin waxaan rabnaa waana ku ammaanayaa way ka jaban yihiin isbitaalada kale private-ka ah in private-ka ay ka jabnaadaan dadka loo naxariisto. wayna ka jaban yihiin dabcan intaan ka ogahay. waxaan u baahannahay hooyooyinka Soomaaliyeed waa aasaaskii qoyska waa tiirkii bulshada caruurtoodana waa mustaqbalkii ummadda waa hogaamiyaashii berri.